aniga daxaaskii cilaan meel lagu soo marinayo because anaaba joogabo cilaanka meelaha lagu soo marin lahaa mid ka khatarsan oo waliba magaceeda loogu alifayo iyo naqshadaha markaas lugteeda ama gacanteeda aan qabto ilaahay xalaaleeyay anaaba ku kor alifayo naqshadan kor alifaabo magacaygu waa Cabdiraxmaan Siyaad waxaan baraa ardada gaar ahaan gabdhaha maadada la yiraahdo heena ama cilaanka maadadaas cilaanka oo waqtigan la taagan yahay gabdhaha degan xaafadan iyo magaalada Muqdisho ba ay aad u jecel yihiin marka la yiraahdo barashadeeda marka maadadan cilaanka waa ay fara badan tahay markii la barayo ardada oo qaybo badan ay ka kooban tahay sida bacweynaha bacyaraha qaliijka daawuska Mombasa Hargeysa Dubai Suudaan Baajuuni goosgooska cilaan Muqdishaha iyo wixii la midka nashqadan marka la saarayo waxay ku soo aadaysaa halkaas oo kale ku soo aadaysaa hadii la yiraahdo barasho ahaan horta ma jiro iskuul ama macallin ibaray laakiin waxaan ahay qof isaga go'aansaday inuu barto waxayna ahayd timekaasi 2012 iyo 2013 ay ahayd xilli habeen ah ayadoo la joogo ayaa gabadha xaaskeyga gabdho waxa u yimaaday oo ilmaabtiyaasheedii ah waxay rabeen in ay tagaan goob cilaan saar ah moobiladina dhanba silent ah wada saarnaa gabadhii waa ka qaban waayay waxa dhacda marka ugu dambeynina guriga imaado gabadhii oo careysan oo maxaa la yiraahdo u careysan taleefankii aan ka qaban waayay waxaan weydiiyay markaan imaaday maxaa dhacay marka maamada waxay ugu dhahday gabdhihii xaafadda ayaa u yimaadeen walaalaheed ahaa cilaan bay soo saaran lahaayeen ayadii marka waxaan ku dhahay ma cilaan rabtay mise wax kale markaasay dhahday cilaan aan rabay cilaan hadaa rabtaa tiri aan ku dhahay daawada soo gado qaso anaaba ku saarayo maadaama oo aan ahaa qof ilaahay heebad uu siiyay inuu wax sawiro gabadhii ayaan marka habeenkii oo xaaskeyga ahayd ayaan habeenkii cilaankii u saaray gabdhii ay israaci rabeen cilaanka loo soo saaray midka aniga xaaskeyga u saaray kaani saara qurux batay halkaas marka waxa iga soo gashay in iskuulkii kamid dhigo maada laga qaato iskuulkeyga sidaasaan marka waxaan ku sameeyay cilaano fara badan ilaa aniga marka dambe aan gaaraba inaan alifo sida gabar hadii la yiraahdo mesela Fartuun inaan magaca Fartuun cilaan aan ka sameeyo hadii la yiraahdo Muno magaca Muno inaan cilaan ka sameeyo taasoo sabab u ah marka more practical aniga aan sameeyay waxaan ugu bartana ma ahayn inaan ku shaqaystay waxay ahayd in caruurteyda xaaskeyga cid kasto aniga weysada iga jabinin oo daruuf cilaan in lacag looga qaato ay timaado inaan ka badbaadiyo wayna dhacday saad u jeedaan cilaankan wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood uu ka kooban yahay qayb waa qaybta dhaxda calaamada wareega ku jirto bulshada deegaanka siday ugu falceliyeen hadaa ku sheego iskuulkan aan taaganahay waxa ka dhacday maalin maalmaha kamid ah waxaa noo timaaday ayadoo cilaankii barashadiisa ay socoto maamo gabadheeda wado oo cilaan in loo baro u baahan halkan waxa lagu soo sheegay marka in cilaan laga barto laakiin looma soo sheegin macalinka cilaanka bara inuu nin yahay iyo inay naagta looma soo sheegin markaas ay dhahday waxaan u baahnaa iskuulkan in cilaan lagu dhigo la ii soo sheegay maasha Allah waxaan maama soo dhawow waxaan rabaa tiri gabadhaan wadaa markaasaan waxaan ku dhahay gabadhaan ma wadaa cilaan ma u rabtay ha macalinka cilaanka ma raadinaysay ha macalinka cilaanka waaba aniga kula taaganaa dhahay maamadii marka way yaabtay iyadoo raadinaysay macalimad dumar ah ayaa waxay heshay macalin nin ah oo waliba u cadeynayo inuu yahay isaga waana aniga xiligaasi qofka falcelintaasi kala kulmay maamadaas wixii ka dambeeyay dadka ardada halkan ka baxay waxay u noqotay ma sha Allah caqabad horta halkan aan joogno horta caqabad kala kulmay laakiin maadaama aniga aan ahay qof isticmaalo waxyaabaha baraha bulshada oo kala social media aan ku jiro khaasatan barta TikTok ayaa waxaan la kulmay dad fara badan oo aan fahansaneyn maadada cilaanka waxa ay tahay oo igu taageed gareynay micnaha in hool aan ahayn hoolihii ragga aan aniga dhaxda la galay ama aan dhaxda ka galay marka anaga bulsho Soomaaliyeed ma qancinayneen bulsho Soomaaliyeed ayaan badbaadinaynay dhaqaalaheeda iyo in ay baran karaan waxaan caleenta iyo ubaxa iyo la isku geeyay inaysan waqti badan kaga bixin hadii isku dayaan wayna dhacday dadku ku soo dhaweynayeen waa dad fahansan dad qaar waxay fahansan yihiin waxaan inay artist ay hoos imaadaan waxaan marka la kulmay dad aad ii soo dhaweeyay oo dhahayaan ustaadu hool fiican haysa ma sha Allah dadna waxaan arkay niyo sidee adiga maxaa ku geeyay barnaamijkaasi dhahay Cabdiraxmaan cilaankaas nashqada dhinacana loo jeeday ka maxaa dhinaca loo soo jeeday
fariinta aan diraa horta waxa waaye haddii lacala uu jiro macallin anigoo kale ah inuu horta iska ilaaliyo gabadha jirkeeda inuusan u dhawaanin inuu iska ilaaliyo inuu nin rag yiraahdo bukiyeeri ayaan furanaa xaliimooyin ay imaanayaan aan cilaan u saaraa lugta ka saaraa ama gacmaha ka saaraa aan bukiyeeriga igu imaanayaan nashqadaada aan u saaraa taas horta waxaan leeyahay ilaahay ha idinka ogaado laakiin barasho ina anigoo kale dad sii bartid ina waalidkaaga iyo walaasha iyo xaaskaaga ku caabisid waa wax aad u wanaagsan